السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتو وعنا وناكسن داوديالا halkani waa dhambalka dunida ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada xiisaha leh ku daawad doontaan waxa qayb ka noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta qalinka ku duugay dastuurkii Soomaaliya oo dhawaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen barnaamijka ayaan daawadayaal kugu soo gudbin doona sidoo kale waxaan haynaa gulufka ugu dambeeyay oo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab laga xoreynayo gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan oo si dardar la kaga socda gobolkaas Shabeellada Dhexe iyo waliba saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo qulqulaya gobolkaas Shabeellada Dhexe iyo dardaaranka ugu dambeeyay u jeediyeen ciidamada dawladda oo la filayo in hawlgallada ugu dambeeyay oo Al-Shabaab laga xoreynayo goboladaas ay qaadaan ayaan daawadayaal kugu soo gudbin doona barnaamijkan hadii baraale ka noqdo waxaan sidoo kale haynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladaha abaaraha dalka ka jira gurmida kala duwan oo la gaarsiiyay meelo fara badan oo abaar xooggan ay markaas ka jirtay ku soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya hadii baraale ka noqdo fadlan hada ku cusubta YouTube-kana dhabalka dunida subscribe saar sidoo kale page-kana dhabalka dunida soo follow gareeya barahana kale bulshadana waad ka heli kartaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waana galabnimo axada taariikhdu waxay ku baagan tahay 8 bisha 3 sanadka 2026 u diyaar garoob daawadayaal qodobada maqashana intaas ka faahfaahsan waana goorweynaysi aan baqaado insha Allah hagaag aan ku horeyna daawadayaal qodobka ugu horeeya barnaamijkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galabta qalinka ku duugay dastuurka Soomaaliya oo dhawaan labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka saareen ku belgaarnimada isla markaana cod aqlabiyada ay ku meel mariyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay garbihiisa taagan yihiin gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo waliba gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi ayaa wuxuu si toos ah markaas u saxiixay dastuurkii Soomaaliya waxaana maanta ka dambeeyay dastuurkaas uu noqon doona mid dhaqan gal ah isla markaana lagu dhaqo dadka shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markii uu saxiixay dastuurka kadib qodbad u jeediyay dadka shacabka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay in dastuurkooda ilaashadaan isla markaana dastuurkan laga soo maray dhibaato fara badan muddo fara badan uu qabiyo qoraal ahaa ilaa dhowr iyo 10 sano uu soo jiitamayna maanta ay u suurta gashay inuu qalinka ku duugo isla markaana uu ansixiyo dastuurka Soomaaliya oo in muddo murankiisa isqabqabsigiisa uu ka taagnaa geeyiga Soomaaliyeed siyaasiyiin fara badan ay si togan kaga soo horjeedeen isla markaana ay sheegi jireen in dastuurka Soomaaliya uu qabiyo qoraal yahay isla markaana ay suurta gal ahayn in hal dhac kaliya ay soo tashaan xubnaha mucaaradka ayaa si xoog la kaga soo horjeeda dastuurkaasi Soomaaliya ayagoona ku tilmaamaya in filla Soomaaliya ay gadal ka raaxayso isla markaana gudoomiyaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ay si gaar ah ugu eedeeyeen in dastuurkaasi asagu uu si gaar ah danihiisa uga dhaxarkay isla markaana qodobyo fara badan oo ka tirsan dastuurkaasi uu si aan kala har lahayn u sheegay inay ansax tahay waxaana ku tilmaameen baarlamaankii ansixiyay inay yihiin kuwa caada qaatayaal ah oo aan marna ku haboonin in matalaan shacab Soomaaliyeed mucaaradka oo aan waxba la harin muddo fara badan ee ciidamada kala duwan u jeedinaya dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ku haystay dawladda arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka wax ka bedelka dastuurka iyo waliba arrimo kale oo siyaasadeed waddanka ka jira ayaa iminka u muuqata inaan warkooda waxba laga soo qaadin iyadoo ugu dambeyntii galabtay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qalinka ku duugay dastuurka Soomaaliya oo in muddo markaasi ay baarlamaanka qayb ka mid ah oo laga ganaxay fadhiyada baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhaganaayeen isla markaana meel ka mid ah magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen shirar ay kaga soo horjeedaan dastuurkaasi sidoo kale madasha la magacaabaday mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna si toos ah iyo si inta kaga hor yimid ayagoona la arkayay waayii ugu dambeeyay in magaalada Muqdisho meel ka mid ah ay shirar jireed ku qabteen ayagoona kaga soo horjeeda dastuurkaasi Soomaaliya eedama kala duwan ay ugu soo jeediyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa oo ayagu ku guuleystay inay cod aqlabiyada ku meel mariyaan dastuurka Soomaaliya oo qabiyo qoraalkii laga saaray waa hagaag daawadayaal wali wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ayaan ku gudi jirnaa gobolka Shabeellada Dhexe waxa ka socota gulufka ugu dambeeyay ee dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab laga xoreynayo gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan gaar ahaan degmooyinka masaajid Cali Gaduud Aadan Yabaal iyo waliba gobolka Hiiraan oo la filayo in dhawaan howlgalka ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka fuliyaan gaar ahaan waxa socda howlgalka ugu dambeeyay ee dagaalamayaasha Al-Shabaab laga xoreynayo degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay sanadkii hore ay qabsadeen waxa deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa isaguna halkaas maalintii shalay gaaray iyo waliba
xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyagu deegaan ka soo jeeda halkaasi deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe imika ka socda hawlgalladii ugu dambeeyay dagaalamayaasha Al-Shabaab lagaga xoreynayo waxaana xusid mudan in masaajid Cali Guduud iyo waliba aadan yabaal oo in muddo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab iminka la soo warinayo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qarka u saaran yihiin isla markaana la soo warinayo in ay suurtagal batayba in saacadaha la soo socdo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya halkaas ay kala wareegaan isla markaana lagu soo afjaro dagaalamayaasha Al-Shabaab oo in muddo goboladaasi Hiiraan iyo waliba Shabeellaha Dhexe ayagu meel fara badan ka mid haystay haatan ay u muuqato in arrintaas soo afjarantay oo ciidamada dawladda oo markaas ka helaya taageero dadka deegaanka ay markaan u qalab qaateen sidii Al-Shabaab ay kaga xorey lahaayeen deegaanadaasi ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo waliba gobolka Hiiraan oo qayb ka mid ah Al-Shabaab ay joogaan hase yeeshee iminka uu socdo abaabka ugu dambeeyay ee deegaanadaas laga xoreynayo intaas ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal barnaamijkeennii falanqaynta wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya fadlan aad ku cusub tahay YouTube kana dhambalka dunida subscribe soo saar sidoo kale page kana dhambalka dunida soo follow gare tan iyo barnaamij caynkan kala inta ku kulmi doona akhyaaray wadaar abshir xasan oo ilaahay sidaas iyo Ramadaan al-Kariim